xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa 2,000 neef oo ari ah oo kamid ah 7,000 neef oo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu talagashay bulshada ay saameysay isbedelka cimilada gaarsiisay degmada Hadhagaale faafahinta warkan waxay inoo eegay wariye Cabdirasaaq Ibraahim xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa bilii ugu dambeysay qorsheysay in loo sameeyo dib u dejin bulshada ku dhaqan gobolka City ee saameysay abaarta cimilada isbedelku iyadoo uu qorshahaasna waqti xaadirkan ka hirgalay qabalaha gabiya ka tirsan degmada Hadhagaale ee gobolka City iyadoo markaasna dib u dejintani loo sameeyay 550 qoys oo loo dhameystiray dhammaanba guryaha ay degi lahaayeen lana siiyay mid 1 hektar oo beer ah si ay ugu kaafiyaan noloshooda daba beerahan la siiyay bulshadani loo sameeyay dib u dejinta ayaa qorshe uu sii diyaariyay maamulka gobolka City iyagoo markaasna guud ahaan degmooyinka uu ka gooban yahay gobolkan City ay beeraan 300 hektar oo isugu jira galey iyo calafka xoolaha si loo kaafiyo nolosha bulshadani inta ay ka soo dhiganayaan daba xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo looga bartay ka waraynta shacabka deegaanka ayaa taageero isdaba joog ah soo gaarsiinaysay bulshada ay saameysay abaarta cimilada isbedelku iyadoo taageeradii ugu dambeysay ay ahayd 7,000 oo neef oo ari ah iyadoo uu taageeradan wajigiisii koobaad soo gaadhay qabalaha gabiye ee ka tirsan degmada Hadhagaale dawmaran wax ka weydiinay madaxa arrimaha siyaasadda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee gobolka City madana Cabdi Cumar shacabkani loo sameeyay dib u dejinta ayaa waxa uu yiri arigan aad arkaysaan waa arigii loo soo iibiyay dadkii abaarta ku tabaaloobay guryaha hadeer aan iyagana arki doonaana waa guryihii dadka loo dhisay sidoo kale beeraha la siiyay marka ka go'naanshaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ah ari tiradiisu dhan tahay 7,000 oo loo iibinayo degmada Hadhagaale qabalayooga waliba gaar ahaan area-da gabi dadkii ku tabaaloobay ee guryaha la dejinayo ayaa kamid ah hordhaciisi oo soo gaaray degmada Hadhagaale qabalaha gabi kan iyo kii hadeer aan dejinaynaba uu yahay dhinaciisa gudoomiyaha degmada Hadhagaale mudane Khadar Abiib Cusmaan ayaa sheegay in dadaal dheer loo galay sidii shacabkani ku dhaqan qabalaha gabi iyo nawaaxigeedaba loogu sameyn lahaa dib u dejin si ay uga feejignaadaan abaarahan kale ay keeni karaan cimilada isbedelku isla markaasina aad ugu mahadceliyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dadaalada ballaaran ee habeen bal garab taagneed bulshadani ay saameysay cimilada isbedelku sida idin muuqata waxaan hadda ku suganahay waa qabalaha gabi meeshana waxa ka muuqda ari tiro badan oo hadda naga soo gaaray xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya dadaalka imika socda wuxuu qayb ka yahay macnaha qorshayaashii ay xukuumaddu u dejisay ee shacabka noloshooda dib loogu soo celin lahaa maadaama ay abaareysnaayeen marka waa arigan imika inoo muuqda waa tiro 7,000 oo ari intii ugu horeysay oo imika 2,000 oo ari baan soo gaaray inta kale waxaan rajaynayaa berri saa dambe inay soo gaaraan goobtan loona qaybiyo shacabkii halkan la dejiyay shacabka ku dhaqan qabalaha gabi iyagu loo sameeyay dib u dejintani ayaa mar aanu dareenkooda wax ka weydiinay sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin noloshani cusub ee xukuumaddu u sameysay taas oo ay kaga raysteen rafaadkii iyo kolba meel u guurkii xoolo dhaqata reer guuraanimada ahaa aadna u bogaadiyay dib u dejintani ee xukuumaddu u sameysay kuna tilmaamay talaabada ay xukuumaddu ku dhaqaaqday mid meelku oo laha oo ku dayasho mudan diyaabaan hayno reer guraa xoolihii ay ka dhameysay abaari dawladda gacan qabatay waana soo furay guryahan baan noo dhisay beerihii waana siiyay biyihii waana noo sii daayay waan ugu mahadnaqaynaa dawladdeeda mas'uuliyadda maxaan ku ilaahay hawsha noo galay ee noo dhaqaaqay Allah ka jisaysiyo heerkay tagin heer ka sareeya Allah gaarsiiyaan leenahay halkay maanta darajadoodu joogto darajad ka sareysa Allah gaarsiiyaan leenahay maadaama ay noogu dhaqaaqeen gurigeena nasiyay oo beertii oo tigaadu ka baxday wax walba ku yaalina nasiyay oo maxaa ku nidhaanay adduunyo arigiina noo keenay oo loodii noo daba socoto oo wax janno walba ay noo soo sidaan ما كم مهنا قينا بقول بان مهد علينا دولة جرت الله كدقان لنا مسؤولة جرت الله كدقان لنا هير كجوجر هير كسر الله قارسيان لنا هذا وسط حوالي بقول هكتار سوتش رجلي دي علف كحولها بيرن مملك قبل كسيتي دقموين كقبل كو واي مردل كودي بسلادين أيها وحلو كان يقلب عصريا وصيد بيروك كلا صار يجلي دي يلف يضو مركز سنة لجب وحيد شوان الدقيقة ذا يرجود هود قبل الشعب كان اللوسمي دبدتشين تيكون دقن قبلها قبية دقمة هذا قالة أيها الله قابين دونا idani soo gooday iyo waliba arigani gaaraya 7,000 neef Cabdirasaaq Ibraahim Class Cabdirasaaq Daaja telefishinka caalamiga ee STV qabalaha gabiye ka tirsan degmada Hadhagaale ee gobolka City هذا يوم حسين wariye Cabdirasaaq oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay